cali bn abi aalib ayaa qubuuraha tegey baa la yidhi. markaasuu la hadlay dadka qabriga ku jiray, wuxuu yidhi yaa ahlulqubuur, dadkan qubuurta ku jirow, xaaladdiinaan idinkaga warramaa ee dhegaysta. xoolihii aad ka soo dhimateen qad qusim, waa la qaybiyey. naagihii aad ka soo dhimateen qad zawaj, waa la guursaday. ilmihii aad ka soo dhimateen waa barbaareen oo waa koreen. xaaladdiinna adduunka waa sidaa ee idinka xaaladdiinna nooga warrama. faqushiya cali waa suuxay radia allaahu tacaala canhu, waa soo kacay, hadalkii ayuu ugu celiyey, waa ooyey radia allaahu tacaala canhu. wuxuu yidhi wallaahi ahlu qubuur hadday ii soo jawaabi lahaayeen waxay ii dhihi lahaayeen watasawaduu fa inna khayra azaadi attaqwaa. ma dhihi lahayn meel wax dhigta, ma dhihi lahayn adduunka ku sii socda, ma dhihi lahayn nafsaddiina u raaxeeya, ee waxayna dhihi lahaayeen sahay soo qaata, sahay la qaata taqwada iyo cabsida ilaah ayaa u weyn subxaanahu wa tacaala una khayr badane. wallaahi hadday ii soo jawaabi lahaayeen waxay dhihi lahaayeen buu yidhi watasawaduu fa inna khayra azaadi attaqwaa. sahay soo qaata oo cabsi ilaahay ah subxaanahu wa tacaala. haddaba qofka haddii ilaah taqwadiisa laga waayo xaaladdiisaa sidaas ahee daalimkan dhintay dadku waxay gudagalayaan in markaa la duugo. gabadhii dahabkeedii waa laga furaa, saacaddii kuu xirneedaa lagaa furaa, dharkaagii qiimaha badnaa ayaa lagaa reebaa, waxaa lagugu karfanaa 2 maro ama 3 go oo cadcad ah ama hal keliya, intaas ayaa lagu siinaa. sidaa darteed ayaa mufasiriinta markii ay fasiraayeen aayaddii ilaah subxaanahu wa tacaala ee uu yidhi walaa tansa nasiibaka min addunya, ha iloobin nasiibka adduunka, waxaa loola jeedaa karfantaada iyo dhulka lagugu duugaayo, taa ha hilmaamin. inta kalena taqwada ilaah ku dadaal subxaanahu wa tacaala. sidaa ayaa loola jeedaa ayay markaa yidhaahdeen. haddaba qofka muslimkaa xayaata baxaas iyo dhibaatadaasaa sugaysee waa inuu diyaargaroobaa. laakiin hadda waxaan ku jirnaa faajirkii iyo faajiraddii dhimashadooda waa la nadiifinaa. sida dadka loo dhaqaa marka sidaa loo wanaajiyo karfanta la geliyo. ilaah muxuu dhahay subxaanahu wa tacaala waltafat issaaqu bisaaq ilaa rabbika yowmaidin ilmasaaq. waxaa loola jeedaa labadiisii lugood ayaa laysku dumayaa si karfanta loo geliyo. go'i cadcadda ayaa loo gelinaa. waxa loo wadaana waa qabriga. meeshaasaa lagu diyaariyey qofkii daalimka ahaa ee ilaahay diiday subxaanahu wa tacaala. maxaa la samaynaa marka? waxaa la samaynaa in layska qaado, waayo qof wax ku falayaa ma jiro. dadkiisii iyo ehelkiisii way iska dhaqaajiyeen. nasiib xumo ilaah agtiisana wanaag ma dhiganin. marka qofka janaasada lagu qaado oo sariirta meydka la geliyo, rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, rag ayaa acnaaqdoodii qoorahooda ku qaada janaasada. fa in taku saalixa, naf fiican haddii ay tahay, faqaalat qadimuunii qadimuunii. hadhow ayaan arki doonnaa markaan muslimiinta ka sheekaynayna habkay u dhimanayaan. hadda waxaan u soconaa dadka daalimiintee wa in taku sawiyu daalika buu dhahay nebiga. mid aan fiicnayn hadday tahay waxay leedahay yaa waylahaa ayna tadhabuunii bihaa, yaa waylahaa ayna tadhabuunii bihaa. haagiiniyow xaggeed ii waddaan. sariirtaa lagu tusay dhibaatadii iyo rafaadkii. haddana qabrigii ayaa loo wadaa. markaasuu leeyahay halaagiiniyow i celiya. ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi xataa idaa jaa'a axadahum almowt qaala rabbi irjicuun. ilaahay ayaan idinku dhaariyey i celiya lacallii acmalu saalixan fii maa tarakt. waxaa laga yaabaa camal fiican inaan soo qabsado, adduunka iyo celiya fii maa tarakt. ilaah wuxuu yidhi kallaa innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa wa min waraa'ihim barzaqun ilaa yowmi yubcahuun. wax la celinayaa male. naf haddii ajasheeda timaado walan yu'akhir allaahu nafsan idaa jaa'a ajaluhaa.
ajasheeda haddii la gaaro celitaan ma jiro meel loo celinayaa male barsaq ayaa loo wadaa weliba qofka inta janaasadiisa la sii wado ayay leedahay halaagiiyo xaggeed ii wadaan halaagiyo xaggeed ii wadaan iyo celiya camal fiican ayaan soo qabanaa codkeeda wax walba ayaa maqlaya buu dhahay nebiga oo ilaahay qalqay ilaa insi iyo jinni maahane haddii la maqalsiin lahaa la saciqo suuxdinay u dhiman lahaayeen buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam waayo qof ehelkaaga ah oo aad waddo janaasadiisa oo dhahaya yaa weylahaa ayna tadhabuunii biha xalaagaygiyo xaggeed ii waddaan oo dhibaatadaasaa u qaylinaayo wax duugi karaa markaa ma jiro sida loo sii wado qabriga ayaa la geynaa qabriga marka la geeyo qofkii meesha la dhigo waa la duugaa ilaahay ayaa yidhi subxaanahu wa tacaala humma amaatahu faaqbarah qofku waa dhimanaa waana la qabriyaynaa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala humma idaa shaa'a ansharah wakhtigii uu rabo ayuu ilaahay ka soo bixinaa qabriga subxaanahu wa tacaala qofkaan marka la wado oo qabriga la geeyo dadka gobolka mida waxay akhriyaan ama ay tilmaamaan wax la yidhaahdo talqiinta noocaasa wax jiraa ma ahan qofka muslimkaa mar walba ilaahay ayaa ku suga tawxiidka talqiinta waxay dadku yidhaahdaan waa qofka marka uu dhinta wax loo laqino oo la yidhaahdo qul laa ilaaha ila allah laba malag baa kuu imaanaysa hadday laa ilaaha ila allah ku weydiiyaan saas dheh nebigayga sidaa waaye dheh xaaladaha noocaas ah wax sugan markaa ma aha qofka hadduu daalim yahay ilaahay ma waafajinayo subxaanahu wa tacaala si kastoo talqiin loogu akhriyo wax kasta oo loo sheego hadduusan ku camalfali jirin laa ilaaha ila allah xumaan uu ka hari jirin wanaag uusan samayn jirin ilaahay ma waafajinayo subxaanahu wa tacaala qofkan marka qabriga la dhigo oo la seexiyo carada ayaa lagu shubaa waa la duugaa waa laga soo tegaa ilaah subxaanahu wa tacaala isla markii xayaato barsaqiye ah ayaa la soo noolaysiinaa laba malag ayaa u imaanayaan markay labadii malag u yimaadaan waxaa la soo miisaalaa sida nebiga xadiiska bukhaariga uu ku tilmaamay nin nebiga ah ayaa loo keenaa miisaalkiisa markaasaa la leeyahay ninkan maxaad ka taqaanaa waxaan ka hadlaynay gabar ilaahay diinkiisa lagu kari waayey xaqa ilaahay raaci weysay xumaan iyo fisqi ku jirtay habeen iyo maalin iyo nin noocaasoo kale ah oo qabriga hadda la dhigay marka la yidhahda ninkan ma taqaanaa nebigu wuxuu yidhi wuxuu dhahayaa laa innii samictu naasi yaquuluuna shay-an faqultuhu ma aqaan ani dadkoo wax dhahdhahayaan ayaan maqlay waana iska dhahay laa ilaaha ila allah muxamadun rasuul allah oo dadka dhahayaanaan maqlay anna dadkaygaan dhinac ka raacay wax uu yahay iyo meel ay ka timid iyo kelimada wax loola jeeda maba ogiba sidaa ayuu leeyihiin baa la yidhi dadka daalimiinta ah ayuu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam riwaayad kale waxay leedahay marka la yidhaahdo ma taqaanaa wuxuu leeyahay haa sida dameerkoo kaleu markaa u qaylina malaa'igtu waxay leeyihiin laa darrayta walaa tallayt weligaa ha ogaanin ha maqlin hana aqrinin garuun bir ahaa lagu tumaa buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam qabrigiisaa laisu soo ciriirinaa oo laysku keenaa ilaa feerihiisa ay iska dhaafaan oo kuwii bidixda jirayna ay midigta soo maraan kuwii midigta jirayna ay bidixda yimaadaan buu dhahay sala allahu calayhi wasalam meeshaas ayuu ku jiraa dandarada iyo rafaadka ilaa qiyaamaha laga gaaro oo laga soo bixiyo ayay xaaladiisu sidaa noqonaysaa.